الله بدابها حق وصواب، كلمة من عالم الغيب ربك جابها. لا إله إلا الله خضابة الصخر الصلاب، أحمد المختار للخد يسبق نابها. لا إله إلا الله الريح تشهد والسحاب، والجبال الراسية كلها وهضابها. ولا إله إلا الله أكبر سؤال أعظم جواب، الرعود أصواتها والبروق أثوابها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta oo ah maalin isniin ah taariikhdana tahay 17 bisha Julaay ee sanadka 2017 ee milaadiga. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka taariikhda asalka Soomaaliya. barnaamijkaasi oo aanu ku wareysan doono mid ka mid ah taariikhyahanada ugu waaweyn dalka Soomaaliya. barnaamijkani oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda BSS Radio oo ah idaacad ku hadasha afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. لا إله إلا الله القاهر الفرد المهاب، جابر العثرات معطي الكنوز أصحابها. لا إله إلا الله والكلام الصدق متاب، الحكم في سرها والهدى بهدابها. Soomaaliya goorma ayay soo bilaabmatay yayna ahaayeen dadkii ugu horeeyay ee Soomaaliya yimid. Soomaaliya waxay ka soo bilaabmeen ninka la yiraahdo Caqiil. waxay ka soo bilaabmeen ee Soomaalida ee ku abtirsataa Caqiil bay ku abtirsataa. ninkaas Caqiil la yiraahdo wuxuu ku dhashay magaalada Makka. wuxuu dhashay 44 sano oo hijriyada ka hor, kuna beegan 578 ee miilaadiyada. wuxuu ku barbaaray Makka, ku barbaaray. wuxuu islaamay xilligii maxaa la yiraahdayo caamil Xudaybiya ayuu soo islaamay. wuxuu dhalay ilmo badan buu dhalay. ilmihiis waxaa ka mid ah يزيد، سعيد، جعفر الأكبر، أبو سعيد الأحول، مسلم، عبد الله الأكبر، عبد الرحمن، عبد الله الأصغر، علي أكبر، جعفر الأصغر، حمزة، عثمان، محمد، عيسى، علي. قبلي سنة وحاكمته أم هاني، زينب، فاطمة، زينب الأصغر، أم اللقمان، أسماء، أم القاسم، أم النعمان. مركا تاريخ وحي tilmaamaysaa ninka Caqiil la yiraahdo inuu yimaaday magaalada Zaylac. markuu imaanayayna kaligiis muunan ahayn. waxa isla yimid Caqiil iyo jamaaco kale oo saxaabada ka mid ah ayaa isla yimid. waxaa la tilmaamaa inay ahaayeen reer Bani Makhzuum inay ahaayeen ayaa la tilmaamaa. marka Soomaalida waxay ku abtirsadaan ninka la yiraahdo Caqiil ayay ku abtirsadaan. ninka inta ku farcamay waxa weeye Muhammad bin Caqiil ayaa ku farcamay. faraciisa waxa weeye raggan la yiraahdo ajuuraanka la dhahayo weeye. فرعاس محمد بن عقيل waxa weeye ragga la yiraahdo ajuuraaneesku ee asalka dalka iska leh. dadkaasi ayaa ku abtirsada reerkaas Caqiil. Caqiil bin Abi Talib ilmo badan buu dhalay oo hadda aan soo tirinay. meelo badan ay ku kala noolaayeen, sida Yaziid wuxuu ku noolaa Makka. Muslim bin Caqiil wuxuu ku noolaa dalkaas Ciraaq, Kuufa, dhulkaas uu joogay oo gadaal dambe xitaa uu ku dhintay. maxaa la yiraahdayo marka Caqiil bin Abi Talib wuxuu yimaaday magaalada Zaylac ayuu yimaaday. halkaasuu ku nagaaday in muddo ah ayuu joogay. wiilkaasi Muhammad ahna ayaa ku farcamay. faraciisa
ayaa wuxuu noqday farac tiro badan oo barakaysan oo hadda qabiil weyn noqdayoo oo la yidhaahda ajuuraan la yidhaahdo. marka caqiil bin abi aalib markuu halkan u yimid wuxuu bilaabay in uu fidiyo diinta islaamka, inuu ku fidiyo macnaha zaylac oo keliya ma uunan ahayn hadafkiisa inuu diintu ku faafiyo, ee waxay ahayd in wixii hareeraha ahaa oo zaylac hareeraheedii ahaa iyo dhammaan dhulkan Eritrea in dacwadii loo fidiyo. maxaa yeelay keligiis muunan ahayn, jamaaco kale la jirtay oo saxaabada ka mid ah uu adeegsanayay caqiil bin abi aalib. marka waxaa la tilmaamaa dadka Soomaalida ah in ay u nisba sheegtaan caqiil bin abi aalib. caqiil bin abi aalibna dadka u nisba sheegta oo saxda ah waa ajuuraan. maxaa yeelay Soomaalida oo hadda inta Soomaali sheegata waa dad qabaa'ilo badan oo Soomaali iska sheegta wey, laakiin markii la yiraahdo yaa Soomaali ah oo asal ah haddii la yiraahdo waxay noqonayaan ajuuraankay noqonayaan. ajuuraankana waxay ka soo jeedaan Maxamed bin Caqiil bay ka soo jeedaan oo ku farcamay Zaylac, faraciisana uu noqday farac barakaysan oo tiro badan uu noqday. marka faraciisa markuu tiro badnay oo tiro batay oo barakaysmay waxaa ka soo dhaxbaxay dad tiro badan oo gadaal dambe dacwadii sii faafiyey oo ilaa dhulkan oo la yiraahdo Bandar Qaasim la yiraahdo gaarsiiyey Eritrea ilaa dhankaas gaarsiiyey. dacwadii ayaa waxay noqotay dacwad baahday noqotay. marka Soomaalida waxay sheegtaan sidaan idin sheegay ay iska sheegtaan dadka oo dhan Soomaali. maxaa yeelay ninkii Soomaali ee soo galo wuxuu sheegan jiray raggaasi maxaa la yiraahdayo Soomaali uu sheegan jiray, wala soo dadka ay ka yimaaday dhulalkan kale Afrika ka yimaaday hadduu Soomaali soo dhex galo diintii uu qaato wuxuu oran jiray Soomaali baan ahay buu oran jiray. laakiin Soomaalida asalka yaa waay, Soomaalida asalka waxa weeye ragga ajuuraanka ayaa Soomaalida asalka oo leh oo ku farcamay dhulalkaasi geeska Afrika. maxaa yeelay geeska Afrika cid kaga horeysay lama arko caqiil bin abi aalib. geeska Afrika cid kaga horeysay lama arko caqiil bin abi aalib. marka ninka caqiil la yiraahdo asiga naftirkiisa waxa la dhashay walaalo baa la dhashay. Abu Talib wuxuu dhalay 3 wiil, wiilka ugu weyn wuxuu ahaa caqiil bin abi aalib. caqiil bin abi aalib ayuuna u jeclaa ilmihiisa. Abu Talib ilmihiisa wuxuu u jeclaa caqiil bin abi aalib u jeclaa. waxaa la dhashay walaalka kale ku soo xig wuxuu ahaa Jacfar buu ahaa. waxay kala weynaayeen 10 sano ayaa u kala dhaxaysay. caqiil baa ugu weynaa, Jacfar ayaa ku soo xigay, waxaa kale ku soo xigay Ali ayaa ku soo xigay. Alina wuxuu ka weynaa Jacfar iyadana 10 sano buu ka weynaa. marka sidaas darteeda caqiil nafsiyan markii laga sheekeeyo wuxuu ahaa nin yaqaan nasabka aad u yaqaan u ahaa. waxaa hadda sidaas oo kale la mid ah dhuriyadan ajuuraanka la yiraahdo iyagana waa dad nasabka aad u yaqaano oo ilaaliya taariikhda. oo hadda haddii taariikh oo la dalbayo ama taariikh dad wax laga weydiinayo dadka hadda mudan in wax laga weydiiyo waa reerka ajuuraan wey. maxaa yeelay awowgooda ay ka soo farcameen caqiil bin abi aalib wuxuu ku lahaa la yiri magaalada Madiina, wuxuu ku lahaa darin buu ku lahaa la yiri oo si gaar ah asigu ugu fadhiisan jiray magaalada maxaa la yiraahdayo masjidka Madiinatul Munawwara. markaasay carab oo dhan in isu timaado oo qabaa'ilo kala duwan ah markaasay weydiin jirtay nasabkay wax ka weydiin jireen. waxaa la tilmaamaa inuu ahaa xagga jawaabta yacni sida uu u bixinayo waxay ahayd si degdeg ah. jawaabtiisana waxay ahayd jawaab waafi ah oo yacni cad, yacni qofka isla markuu waxa u sheego uu jawaabta u bixiyo wax badan fahmi karo. marka carabta aaday u qadarin jireen caqiil bin abi aalib. sidaas darteeda Maxamed bin Caqiil faraciisa ilaa hadda wuu joogaa. faracaasi ayay u nisba sheegtaan dadka Soomaalida ah, faracaasi u nisba sheegtaan. لا إله إلا الله تخضع لها كل الرقاب، حظ والله من حملها وجاية عابها. magaca Soomaali ka hor dhulka Soomaaliya maxaa loo yaqaanay? Soomaaliya horta waxaa loo yaqaanay
dhulalkan oo waxay oran jireen dhulalka labay u kala baxaan dhul xabashada ay degan tahay waa dhulkan webiga niil ah maxaa yeelay dadka jareerta ah waxay degi jireen webiyaday degayaan xabashtu waxay deganeed webiga niil ayay deganeed ma soo gaaraynin geeska afrika marka geeska afrika wuxuu ahaa dhul oo lama degaan ah xitaa waxaa la tilmaamaa ninka dhintay in qabrigiisa la qodayo 3 maalmood in la qodayo yacni dhulka adeega meeshuu ka gaaray macnaha dhulkan kale koonfurta markaad usoo gudubtana dhulal kaymay ahaayeen oo ku nool libaxyada haramcadka waraabaha yacni wax badan oo waxaa ku noolaa oo dugaag ahaa ku nooleed marka ma suurtageli karin in ay ku noolaadaanba dad marka yaa bilaabay in lagu noolaado zaylac in lagu noolaado yaa bilaabay waxaa bilaabay ninka la yiraahdo caqiil ayaa bilaabay in zaylac lagu noolaado maxaa yeelay haddii caqiil iyo jamaacadaasi la jirtay zaylac ka hor oo la deganaa ma aynan degi karin dacwadna ma aynan ku faafin karin laakiin waxaa ka cad meesha in caqiil uu meesha ugu horreeyey oo meesha ay iska ahayd dhul bannaan ay iska ahayd zaylac ay u suurta gashay dacwadooda inay fulin karaan inay dadka meesha wax ku bari karaan diinta inay keeni karaan inay yacni soo dhoweyn karaan marka dhulka waxaa loo yaqaanay markiisii hore waxaa loo yaqaanay dhulkan Soomaaliya hadda intaan la dhihin waxaa loo garan jiray bilaadu zaylac la dhihi jiray xilligaas iimaaneen bilaadu zaylac la dhihi jiray maxaa yeelay beledka wuxuu ka bilaabanayay oo beled ahaa oo meel la dego zaylaci ahayd marka sidaas darteeda zaylac ayaa la dhihi jiray bilaadu zaylac ayaa la dhihi jiray marka ninka carab meesha soo aaday waxaan aadaya ayuu dhihi jiray bilaadu zaylac intuusan baahin dhulka yacni uusan ku fidin iisheeg maxaa la yiraahdayo xagga oo geeska yacni maxaa la yiraahdayo bariga koonfurtiis uusan ku fidin dhulalka uusan ku fidin إلا الله حصن من الشرك الكذاب ما تمس النار من جاه في جلبابها لا إله إلا الله ذكر الولي يوم الحساب يوم تبنى الشمس والكاظ بعض أسبابها magaca zaylac halkuu ka yimid sideese loogu bixiyey zaylac bilaadu zaylac waxaa la tilmaamaa meesha in la oran jiray wadaad zaylac la yiraahdo laakiin qofku yahay lama tilmaamin wadaadkaas zaylaci baa la oran jiray ayaa meeshaasi inuu ku duugan yahayna waa la tilmaamaa zaylacigaasi waxaa laga yaabaa in caqiil iyo muhaajiriintiisa oo ahaa jamaacatu min asaxaaba ahaa in uu ka mid ah nin zaylaci la oran jiray oo meesha isaga dhintay oo sidaas darteedaba la siiyey magaca maadaama bilaadkaas waddankaas ay mar walba ka soo baxayaan uu noqday dhul carbeed oo iyada u madax bannaan maxaa yeelay xabashada ma aynan soo gaari jirin dhulkaas zaylac ma soo gaari jirin marka sidaas darteeda sheeqaasi zaylaci la yiraahdo ayaa lagu magacaabay dhulkaas zaylac ayaa lagu magacaabay waxaa weeye markii la tilmaamayo magaalooyinka Soomaaliya waxay ahayd zaylac magaalada ugu qadiimsan ugu taariikhsan baad maxaa yeelay Soomaalida asal waxay ka soo bilaabmeen zaylac ka soo bilaabmeen dacwada waxay ka bilaabmatay zaylac bay ka bilaabmatay ganacsigu wuxuu ka bilaabmay zaylac buu ka bilaabmay xadaarada wuxuu ka bilaabmay zaylac buu ka bilaabmay marka faracooda wuxuu ka bilaabmay zaylac buu ka bilaabmay marka sidaas darteeda waxa weeye magaalada zaylac waa magaalada ugu qadiimsan ugu xadaarada badan ugu taariikhnimo badan markii loo eegaayo magaalooyinka kala Soomaalida لا إله إلا الله أجمل خبر وأكمل نصاب تشرح الخاطر وهي مفزع لذنابها magaca Soomaaliya goorma ayaa loo bixiyay dhulka sideese uu ku yimid magacaasi Soomaaliya wuxuu ka yimid ninka la yiraahdo Uthman
oo la yiraahdo bin Muhammad bin Hanbal midka la yiraahdo wuxuu ka mid ahaa waali buu ahaa ama amiir buu ahaa marka meeshaasi waxaa ka jirtay inaanan ka deg hadda inaanan ka hormarin ayaan jeclahay waxaa ka jirtay maamul baa ka jiray oo ifaad mamlakatu ifaad ayaa la dhihi jiray ayaa meesha ka jirtay ninka la yiraahdo Uthman bin Muhammad bin Hanbal la yiraahdo waxaa loo magacaabay in uu noqdo amiir ama waali inuu ka noqdo dalka Yaman Cumaan waxay hoos imaanayeen boqortooyadii Ajuuraan ay hoos imaanayeen sidaas darteeda Uthman Muhammad bin Hanbal wuxuu ahaa waali ama amiir oo ka taliya dalka Yaman ayuu ahaa oona amiirna wuxuuna ka tirsanaa amiiradii boqortooyadii ifaad ayuu ka tirsanaa marka sidaas darteeda Uthman bin Muhammad bin Hanbal wuxuu degay waqooyiga Sanca buu degay ee dalka Yaman caasimad Yaman waxa uu ahayd Sanca xilligii boqortooyadii ifaad ee boqortooyadii Ajuuraan ahayd maxaa yeelay boqortooyada ifaad waa boqortooyo Ajuuraan ay ahayd maxaa yeelay ifaad waxa weeye awwalu dawladii ugu horeysay ama boqortooyadii ugu horeysay ay Ajuuraanka aaseen waxay ahayd boqortooyadii ifaad ay ahayd marka wuxuu ka tirsanaa Uthman bin Muhammad bin Hanbal wuxuu ka tirsanaa amiiradii oo boqortooyadii ifaad ayuu ka tirsanaa marka waxaa loo magacaabay in uu noqdo amiir uu ka noqdo dalka Yaman sidaas darteeda ciidan buu watay Uthman bin Muhammad bin Hanbal ciidan buu watay markaas wuxuu degay dalka Yaman khaasatan magaalada Sanca waqooyigeeda waadi ama tog oo la oranaya Soomaal ama Soomala la yiraahdo oo ilaa haddaba ku yaala waadiga soo degay maxaa yeelay amiiradu waxay degi jireen oo boqortooyadii Ajuuraan waxay caan ku yihiin waxay degi jireen iyagana badda xeebaha wabiyada ay guriye ka dhisan jireen badaha ay guriye ka dhisan jireen buuraha ay guriye ka dhisan jireen togaga ayay ka dhisan jireen guriyo marka asiga wuxuu dhistay guri ayuu ka dhistay Sanca waqooyi Sanca tog la yiraahdo Soomaal ama Soomala la yiraahdo marka waxaa loogu magac daray Soomala loogu magac daray marka asagana waxaa la oran jiray magaciisa waxaa ka qaalib noqday toga ayaa ka qaalib noqday Soomala la oran jiray marka sidaas darteeda Soomaali magacaasi saxda ah magaciisa saxda ah waxaa la yiraahdaa Uthman baa la yiraahdaa laakiin naanaastiisa waxaa la yiraahdaa Soomaal baa la yiraahdaa ama Soomala baa la yiraahdaa sidaas darteeda waqtiga oo loo magacaabay inuu ka noqdo amiir dalka Yaman wuxuu ahaa qarnigii 3aad ee hijriyada ayuu ahaa marka waxaa joogay dalka oo ka jiray boqortooyadii ifaad ee Ajuuraanka ahayd ayaa ka jirtay marka sidaas darteeda wuxuu ahaa ninkaasi amiir buu ahaa ilaa muddo amiir buu ka ahaa dalka Yaman gadaal dambe amiirnimadii baa laga qaaday wuxuu ku soo noqday wadankii la oranayay bilaadul ifaad ayuu ku soo noqday maxaa yeelay markii hore waxaa la oran jiray bilaadu Zaylaca la oran jiray laakiin gadaal dambe markii mamlakatu ifaad ay aasantay waxaa la oranayay bilaadul ifaad baa la oranayay wadankii ifaad buu ku soo noqday boqortooyadii ifaad wadankaas uu ku soo noqday marka waxaa la tilmaamaa ilma ayuu dhalay ilmahaasi faracooda ayaa wuxuu noqday ilmo barakaysan farac barakaysan oo noqday ilmo tiro badan ay noqdeen waxaa la tilmaamaa in uu ku dhalay dad xaamiyiin ah gabdho xaamiyiin ah inuu xitaa ilmaha ku dhalay ayaa la tilmaamaa laakiin sida cad Ajuuraanka waxay ahaayeen dad cadcad oo dhaadheer oo dhuudhuuban oo qurux badan ay ahaayeen oona cilmigan engineerinka ayay aadna takhasus ugu lahaayeen marka sidaas darteeda ilmo ayuu dhalay ilmihiisa ayaa tiro badmay marka xilligii
boqor maxamed alan baalcad qarnigii tobanaad ee miilaadiga waxaa ka mid ahaa ilmihiisa owlaadda uu dhalay cuthmaan bin maxamed bin xambal ilmihiisa waxaa ka mid ahaa ninka la yiraahdo oo faraciisa waxaa ka mid ahaa micnaha ilmo badan buu dhalay laakiin faraciisa waxaa ka mid ahaa ninka la yiraahdo maxamed alan baalcad ayaa ka mid ahaa waa ninka ajuuraanka ajuuraan magaciisa saxda ah waxaa la yirahdaa maxamed baa la yirahdaa maxamed alan baalcad dagaal ay xabashada soo qaadeen oo boqortooyadii ifaad lagu daciifiyey oo lagu burburiyey ayaa asiga dagaal uu dib u soo qaaday oo ciidan buu abaabulay maxamed alan baalcad waddankii ayuu qabsaday qarnigii tobanaad ee miilaadiga kadib boqor maxamed alan baalcad wuxuu aas-aasay boqortooyo weyn oo ka weyn midii ifaad maxaa yeelay boqortooyada ragga ajuuraanka ah boqortooyadii ugu horreysay ee aas-aasteen waxaa la odhan jiray ifaad baa la dhihi jiray ifaad markay ka burburtay boqortooyadii labaad ay aas-aasteen waxaa la odhan jiray boqortooyadii ajuuraan maxaa yeelay boqor maxamed alan baalcad wuxuu ahaa xafiiska canshuuraha ayuu fadhin jiray xilligii boqortooyadii ifaad ayuu fadhin jiray xilligaasna waxaa boqortooyada lahaa adeeradiisa sida alan baalcad aabihiisa alan baalcad ninka la yiraahdo oo sidoo kale ninka la yiraahdo hintire waranle kuwaasi ayaa xilligaasi hayay boqortooyadii ifaad waa adeeradiisay ahaayeen gadaal dambe wiilkan markuu dagaalka qaaday oo xabashadii ka guulaystay markaasuu aas-aasay boqortooyo la magacbaday ajuuraan sababta ajuuraan ee uga bixiyaan waxaa weeye magaca asiga naanaastiisa waxaaba loo garan jiray xafiiska markuu fadhin jiray lianna canshuurta ay qaadi jireen ajuura la dhihi jiray luqadda ugu horeysa ay ku hadli jireen carabiga u ahaa luqadda labaad ay soomaali ahaan jirtay marka ajuura ayaa waxaa la yirahdaa canshuurta la yirahdaa xafiiska wuxuu fadhin jiray oo canshuuruhu fadhin jiray sidaas darteeda waxaa asigaba loo bixiyey maadaama xafiiska canshuuraha uu fadhiyo canshuurtii ab loogu magac daray oo waxaa la dhihi jiray ajuura ayaa la dhihi jiray magaciisa ma dhihi jirin oo maxamed ma dhihi jirin ee waxay dhihi jireen ajuura markuu asiga dagaalkaas uu ku guulaystay oo ciidanku u abaabulay xabashadii uu iska dhiciyey wuxuu aasaasay mamlaka ka weyn boqortooyadii ifaad oo aabayaashiisa ay lahaayeen boqortooyo ka weyn oo aasaasay markaasaa wuxuu dhisay boqortooyo la magac baxday ajuuraan qarnigii tobanaad ay ahayd markaasi wuxuu u bixiyay dhulka xilligaas waxaa loo yaqaanay ifaad baa loo yaqaanay waddankii ifaad ayaa la dhihi jiray arrintaasi wuu bedelay wuxuu ka dhigay awowihiisa maxaa yeelay faraciisa markii la tiriyo boqor maxamed alan baalcad markii lasii tiriyo suumaal ayaa la dhihi jiray cuthmaan bin maxamed bin xambal ninkaasi ayuu ku abtirsadaa markaasuu u bixiyey waddanka maxaa la yiraahdaayo wuxuu u bixiyey soomaali ayuu u bixiyey awowihiisuu ku magacaabay sidaasi ayaa loo yiri waddankii soomaaliya ayuu isu bedelay waa marxaladii saddexaad wey marxaladii koowaad waxay ahayd bilaadu zaylac marxaladii labaad waxay ahayd bilaadul ifaad marxaladii saddexaad waxay noqotay in la yiraahdo bilaadu suumaal in la yiraahdo arrintaas waxay soo ifbaxday qarnigii tobanaad ayay soo ifbaxday لا إله إلا الله فكر وهن عتق الرقاب طهرة للخلق بحسابها ولها caqiil iyo asxaabtii la socotay maxaa ku kalifay in ay dalkoodii ka soo haajiraan ayna yimaadaan dhulka geeska afrika caqiil bin abi aalib sababta uu uga soo haajiray oo u yimaaday bilaadu zaylac waddankaas la yiraahdo oo xilligaas dadba aan joogin oo xabashadana aan joogin oo iyaga ay ugu horreeyeen inay yimaadaan bilaadu zaylac waxay ahayd in ay dacwada fidiyaan saxaabada meelo badana loo kala dirayay maxaa la yiraahdaa si dacwada loo fidiyo waxaa jirtay baahi dacwadeeda jirtay sidee loo fidin karaa diinta ee loo wada gaarsiin karaa adduunyada ayaa jirtay marka nin walba wuxuu sameynayay meeshuu karo ayuu dacwada ka fulin jiray marka caqiil bin abi aalib wuxuu awood u yeeshay inuu geeska afrika uu ka fidiyo diinta islaamka uu ka fidiyo marka sidaas ayaa kaliftay asigana
inuu waajibaadkiisa guto oo diinta islaamka ah. يا الله يا غفار سهل لنا كل الصعاب فكنا من كربة مظلم سردابا ما لنا بين ولا دونك حجاب يرتجيك الخلق عنوانها واحبابها. qiyaas ahaan imise ruux ayay gaarayeen markii Soomaaliya ay imaanayeen? waxaa la tilmaamaa taariikhda ay tilmaamtaa caqiil bin abi taalib iyo ilmihiisa iyo jamaacatu min asaxaaba oo keliya la yidhi. tirada lama sheegin intaasay jamaacadaasi oo la jirtay. haddii jamaaco lagu yidhaahdo waxaa ku cad inay badan yihiin, yacni dad badan inay yihiin ayaa daliil ku ah. marka tirada jamaacadaasi intaasay gaarayeen oo intaasi taariikhda ma sheegto, laakiin taariikhdu waxay xustaa in caqiil bin abi taalib iyo caruurtiisa qaar ka mid ah oo kulli aan ahayn qaar ka mid ah oo qaarkaasna waxaa la sheegaa maxamedkaasi uu ahaa maxamed bin caqiil iyo caqiil bin abi taalib iyo jamaaca saxaabada ka mid ah in ay yimaadeen bilaadu zaylac, dacwadana ay ka fulinayeen bilaadu zaylac. saasay ahayd. حاجة في كامل الجلد وانت قرابها اعف عنا يا مجير النبي من العذاب واعف عن أمة محمد فهو أصابها. kolkii ay geeska Afrika yimaadeen isla markiiba boqortooyo miyay aasaaseen? caqiil bin abi taalib hadafkiisa ma ahayn inuu boqortooyo aasaaso. jamaacada la jirtayna fikirkooda ma ahayn in boqortooyo la aasaaso. caqiil bin abi taalib iyo jamaacadaasi hadafkooda wuxuu ahaa in diinta la filiyo, dadka la wada gaarsiiyo ayuu ahaa. باسمك ووجهي لمجدك فالتراب الملوك بجندنا سلمت فرقابها ألف يا رحمن من رحمتك كشف العذاب التقينا بك وغيرك نصب حجابها. goormaa ayay bilaabeen inay boqortooyo aasaasaan? boqortooyada qaabka loo aasaasay waxay aasaaseen xilligii horta boqortooyadii la yiraahdo boqortooyaan oranin xilligii khulafaa u raashidiinta dhamaadkeeda ayay horta aasaaseen. boqortooyadana waxaa la oran jiray mamlakatu ifaad, waxayna ka timid reer bani caqiil, ilmaha caqiil uu dhalay, yacni faraca caqiil bin abi taalib iyo waxaa shiray reer bani makhzuum ayaa shiray. waxayna ku shireen sidee loo aas-aasi karaa maamul. marka maamulkii sidee loo aas-aasi karaa markay ka fikireen kadib waxay soo saareen in la dhiso boqortooye, in la dhiso boqortooyadaasna ay madax ka noqdaan reer bani caqiil. boqortooyadaas waxaa la oran jiray boqortooyadii ifaad. waa awalu dawla, waa boqortooyadii ugu horeysay ay aasaasaan reerka ajuuraanka ah. waxaa la oran jiray ifaad ayaa la oran jiray. السلاطين المهابة هباب فيها باب كلهم في قبضتك لو علت بشنابها ما عليه من البشر لو بنت فوق السحاب دود فقر يحطم الموت ركن قبابها. maxaa ay ahayd sababta boqortooyada magaca ifaad loogu bixiyay? ifaad waxaa looga bixiyay sida oo qiyaastii ah oo ay ka muuqato qaabka boqortooyada markay shireen reer bani makhzuum iyo reer bani caqiil markay shireen waxay soo saareen natiijay soo saareen. natiijada ay soo saareen waxay ahayd yacni meesha abazaylac la yiraahdo dad badanaa joogay oo ajaanib ah ayaa kala joogay oo dacwad diinka qaadan jiray ayaa joogay xilligaasi. haddana waxay noqotay magaalo oo ganacsina way noqotay oo dadkii ganacsiga u yimaadaan dad af qalaad ah oo maxaa la yiraahdaa aan ku hadlin afka carabiga ayaa imaan jiray, ganacsiga u imaan jireen. waxay noqotay magaalo camiran ay noqotay. reer caqiilna dad tiro badan ay noqdeen. marka sidaas darteeda reer bani makhzuum iyo reer bani caqiil ayaa shiray. waxay soo saareen in la dhiso mamlako, mamlakadaas loogu magac daray ifaad. marka kelimada ifaad intay ka timaada, kelimada ifaad waxaa weeye natiijo weeye.
wixii soo baxay natiijadii ka soo baxday wixii soo baxay waxa lagu tilmaamaa natiijo shirkaas wixii ka soo baxay natiijadaasba waxa la yiraahdaa natiijadaba ifaad ayaa la yiraahdaa marka sidaas darteeda in lagu magacaabo ifaad in lagu magacaabo saas loogu bixiyo saasay ku noqotay ifaad ayay ku noqotay mamlakadii marka waxa weeye hadii kelimada la fasiro waxay noqonaysaa natiijo ayay noqonaysaa kelimada ifaad hadii la fasiro sidaas darteedayna ugu bixiyeen mamlakatu ifaad ayaa la oran jiray dhulkii ifaada la oran jiray dadka imaanaya waxay dhigi jireen waxaan aadaynaa dhulka ifaad baan aadaynaa marka wadanka wuxuu qaatay magac mamlakada buu qaatay نسألك بس ما يكل الغر والوصف المراد فالفواتح والخواتيم كم نقربها نسألك بحر في كتاب اي والله من كتاب بس والرجازها بامر وسحابها kumuu ahaa boqorkii ugu horeeyay ee boqortooyadaani boqor ka noqda wuxuu ahaa markay shireen reer bani maqsuumi reer bani caqiil ay natiijadii soo saareen oo in boqortooyo la dhiso boqortooyadaas loo bixiyo ifaad yaa madax ka noqonaya marka howlgalkaba waxaa waday nin la yiraahdo cumar dunyahus walasmac ama walashmac labadaba waa la yiraahdaa ninkaasi ayaa loo doortay in uu noqdo oo ka mid ah reer bani caqiil waa nin ajuuraan buu ahaa oo reer bani caqiil ka soo jeeda ayaa markaas sidaas loogu bixiyey ayaa sidaas loogu magacaabay aan oran lahaa ayaa sidaas loogu magacaabay inuu noqdo suldaanka ama boqorka boqortooyada ifaad cumar dunyahus walashmac واكتب الشهادة وهيرة الذهب واعترف بذنوب عبد وانا كتابها من شكر ولا كفر ما يفيد المكنا الله مستغني عن الكل هو هابها waxaan halkaasi ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka taariikhda asalka Soomaaliya ee aanu ku wareysanaynay mid ka mid ah taariikhyahanada ugu waaweyn dalka Soomaaliya أمر الأملاك وكنوزها صارت مهابة للبلي بغيل حط الفناق الصبها الله كم فرعون حطه على رأس الحراب الله كم جبار دقر وتدبط نابها